reer Madyan waxaa loo soo diray Nebi Shucayb calayhi salaam. Dadkani Madyanna waxa ay ahaayeen qoom burcad ah, waxa ayna jidgooyo iyo isbaaray u dhigan jireen dadka si ay u boobaan una dhacaan hantida dadka. Waxaa kale oo caan ay ku ahaayeen reer Madyan khiyaanada iyo in miisaanka dadka waxa ay ka gateen haaf ay ka dhimaan, iyaga oo miisaanka dadka ka khafiifinaya. Waxaana intaa u dheeraad inay caabudi jireen geed loo yaqaanay ayka. Dhaqankoodii kalena dadkani wuxuu ahaa in caanaha ay ka buuxiyaan biyo aad u badan si ay dadka u khiyaaneeyaan. Waxa ayna degnaayeen dhulka Shaam, gaar ahaan meel aan ka fogeyn halkii ay degnaayeen qoomkii Nebi Luud calayhi salaam. Wuxuu Ilaahay u soo diray Shucayb ibnu Nuwayb ibnu Cayfa ibnu Madyan ibnu Ibraahim al-Khaliil. Nebi Shucayb wuxuu ugu yeeray inay Ilaahay ay ka cabsadaan oo keligii ay caabudaan. Waxa uuna ka mamnuucay khiyaanada ay ku hayeen bulshada iyo boobka qaawan oo ay kula kacayeen dadka masaakiinta ah. Nebi Shucayb waxa uu xasuusiyey in dadkan ay ahaayeen kuwa aad u tiro yar oo daciif ah, kadibna Ilaahay uu ka dhigay dad aad u badan oo qoomiyada. Waxyaalaha la yaabka leh ay ku kaceen reer Madyan waxaa ka mid ahaa in jidka iyo dariiqada ay fadhiistaan dadkii soo marana iyagoo aanan u aaba yeelin waxa ay ka qaadan jireen waxa ay wataan. Nebi Shucayb calayhi salaam wacdigiisiina way diideen intoodii badan, in yar oo rumaysay mooye. Dadkii isbaarada iyo khiyaanada caanka ku ahaa waxa ay la yaabanaayeen diintani iyo wacdigani cusub ee Shucayb uu la yimid. waxa ayna ugu jawaabeen nebigii alle lanakhurujannaka yaa shucaybun waaladiina aamanuu macaka min qaryatina aw latacuudunna fii millatina. shucaybow adiga iyo qof kasta oo ku raaca magaalada ayaan idinka saaraynaa, ama haddii kale diinteenii ayaad ku soo noqonaysaan, ama inaga daaya wacdigani iyo waxani aad sheegaysaan. cagsigeeda dhulkani xoog baan idinkaga saari doonnaa adiga iyo inta ku raacday. nebigii alle ee shucayb ahaa kama uu caajizin kamana uu niyad jabin in dadkani xaqa uu fahamsiiyo, mar walbana uu u sheego in xaqay u soo noqdaan baadilkana ay ka fogaadaan. balse waxa ay ku dhahayeen yaa shucaybun asalawaatuka ta'muruka an natruka maa yacbudu aabaa'una oo an nafcala fii amwaalina maa nashaa. salaadahaaga fooraqsiga ee aad tukatid miyaa shucaybow ku soo faray in aan ka tagno wixii hidaha iyo dhaqanka aan u lahayn ee geedkani awoowayaasheenii xitaa ay caabudi jireen? miyaan adiga oo shucayb ah hadalkaadii uga tagnaa iyo in xoolaheennii wixii aan ka yeeli lahayn adiga aad inoo sheegto? nebi shucayb waxa uu ku yidhi qoomkeygiyow haddii aan aniga xujacad aan ku taaganahay ilaahayna uu i wanaajiyey maxaan idin sameeyaa? anigu ma doonayo inaan idinka hor imaado, keliya inaan idin wanaajiyo oo keliya ayaan doonayaa. waxa uuna xasuusiyey nebi shucayb haddii ay diidaan xaqa inay ku imaan karto ciqaabtii ku dhacday qoomamkii ka horreeyey, sida mislamaa asaaba qowma nuuxin aw qowma huudin aw qowma saalix. qoomkii luutna wixii ku dhacay maba aha wax idinka fog, waa waxaad xasuusan kartaan. markaas ayay ku dhaheen shucaybow waxaad ku hadlaysa maba fahmayno, qof daciif ah ayaan kuu aragnaa. haddii ehelkaaga dartiisa aanan kuu dhaafi lahayn, waa hore ayaan dhagax kugu dili lahayn. tanina waxaa ka siman qof walba oo meel ay u caddahay inta badan wax uusan doonayn, marka uu la kulmo waxa uu dhahaa maba fahmo in badan oo ka mid ah waxa aad sheegayso. nebigii alle ee shucayb ahaa mar walba waxuu kitaabka qur'aanka uu sheegayaa inuusan ka caajizin kana uusan quusan, uuna uga wacdin jiray dulmiga iyo isbaarada iyo khiyaanaynta miisaanka ee masaakiinta ay ku hayaan. kolkii uu daalay iyaguna xadgudubkoodii uu batay ayuu ku dhahay qoomkeygiyow haddii aad i diideen adinkuna wixiina samaysta, aniguna waxaygii ayaan samaysanayaa. dib ayaynu ka ogaan doonnaa midkay cadaabta u imaan doonto. markaas ayaa waxaa lagu soo diray kuleel iyo xanfi aad u daran oo aanan la xamili karin. waxa ay ku yaaceen guryahoodii, kadibna markay u adkaysan waayeen waxa ay ka soo baxeen guryahoodii. waxuu ilaahay markaa u soo diray daruuro wata hoos, waxa ayna dabooshay daruurtii kuleelkii dhibka badnaa ee qoraxda. waxa ayna ka heleen neecawda iyo raaxada daruurtani hoos ka wadata. dhammaantoodiina daruurtani ayay hoos imaadeen. markaas ayaa ilaahay waxuu u soo diray naar cadaab daran wadata, waxaana lagu magacaabaa cadaabkii maalinta harka.
nebi shucayb iyo intii rumaysneedba ilaahay ayaa ka badbaadiyey cadaabka. waxa uuna ku yidhi qoomkeygiyow waan idin soo gaarsiiyey dacwada waana idin nasteexiyey ee kama xumaanay qoom alle ka gaaloobay wixii ku dhacay. yacni kama xumi wixii jab iyo burbura ee idin soo gaaray sababtoo ah nasteexada iyo wanaaggii waad ka gaaloodeen. ilaahay ayaana ka magangelnay cadaabkiisa adduunyo iyo mid aakhiraba. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود.